الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إخواني في الله نحن هلكن كدو بيننا خط كلا يراهدو خط النسخ خط النسخنا وخط آدي مهم أو علماء إسلام كأردني أي أدورتين إن أي مصحف كقرآن كما داموا يهي خط كردن مصحف كالله دورتي قيمه صد كرانيس وانا خطك اي خطادين تا اسلام كاي دهين وفاتحه الكتابه اما وفاتحه الخط خدتكنا بدن يهينو لبدا ugu muhiimsan ayaa mid kamid ah uu yahay walaalayaal waxaan sharxaynaa alifka waxa muhiim ah in laba arrin la milicsado koow inuu siman yahay oo toosan yahay laba inuu sadarka taabto labada arrin hadii laga helo alif saxan oo quman oo qawaacidi khad naskha waafaqsan ayaad qoraysaa waxa sameynaysaa xaga saraad ka soo bilaabaysaa toos baad u soo soconaysaa sadarka ayaa taabanaysaa alifku wax kale oo qawaacida uu leeyahay oo inta aan ahayn ma jirto ba'da iyo ta'da iyo tha'du waa isku qoraan kaliya waxay ku kala duwan yihiin nuqadka ama dhibcaha midba meel ka koraya ba'da marka la qorayo fartan ugu horeysa waa la qaloocinaya saas loo qaloocinaya adoon sadarkii gaadhin oo aan sadarkii taaban ayaad bilaabaysaa wareeg dhinacana baad bilaabaysaa sadarkii baad soo raacaysaa xoogaa markaad socotid ayaad kor u baxaysaa afkan iyo afkanina way kala dhuuban yihiin afkan dambaa dhuuban qalinka caaradiisa saa ula raacaysa marka afkan inuu qalooc noqdaa waa muhiim halkanina inay wareeg noqotaa waa muhiim haddii halkaasi ay qalooc noqon weydo oo ay sidaa u toosnaato waxay noqonaysaa khalad bay noqonaysaa haddii halkani wareeg noqon weydo oo ay xagal noqotona sidan oo kale noqotona oo gees halka ahaadana khalad bay noqonaysaa waxa kale oo muhiim ah marka ba'da la qorayo in labadan af ama labadan bushmood in isdhar leekaada waxa kale oo muhiim ah bushmahan inta ay leeyihiin iyo ushan dheer xariiqdan dheer aad soo raacaysaa in ay isu qiyaasan yihiin waxa aynu diidaynaa inuu qofku sidan yiraahdo isaga oo bushmahan yar yihiin inuu kan jiido oo dabna saydo isma qiyaasna waxaanu kala diidaynaa iyadoo bushmahani ay waaweyn yihiin in intani gaabnaato iyaduna ma qurux badna xarafka ba waxa lagu darayaa oo qura inta aynu sheegnay xariiqda waxa la saarayaa bartankaas xaga hoose laga dhigayaa bartankaas ayaana lagu beegayaa dhinacan ku beegi maysid dhinacana ku beegi maysid waxaad ku beegaysaa bartankaas ayaad ku beegaysaa xarafka ta waa ba'di oo kale ha yeeshee dhibcaheeda waxa la saarayaa bartankaas baa lagu beegaya bartankaas ayaa lagu beegaya waxa kale oo lagu beegayaa bushmaha ama labada dibnood ee taadu leedahay ayaa lagu beegaya haddii aad dhinacan kaga qortid waa khalad haddii aad dhinacan kaga qortidna iyana waa khalad waxa kale oo khaldan in aad meel sare geysid oo xagga ka soo laalaadisid waxa kale oo khaldan in aad gudaha soo galisid oo indho oo kale halkaas oo kale uu noqdo xarafka tha waa ta'di oo kale dabcan labadii dhibcoodna sidii oo kale loo qorayaa dhibicda saddexaad ayaa labada dhibcood dushooda la saaraya sidii saddex dhardhaar oo kale oo isdhinac yaala xarafka jiimka hadaynu u nimaadno xarafka jiimka horta awalan sadarka lama saaro waxa ku xiga af yar oo dhinaca u janjeera dhinaca ayuu janjeera yacni ma toosna sidaas oo kale uma toosna hoos uma soo degayo ee dhinacaas u janjeera waxaad ku daraysaa ul toosan oo in yar xoodan
ul toosan oo in yar xoodan ayaad ku daraysa haddaad toosisina dhib ma laha laakiin in la yaro xoodo ayaa awfaq lilqawaacida oo qawaaciddii sii waafaqsan waad soo soconaysaa bartankaa markaad maraysid ayaad wareeg bilaabaysaa doona san baad oranaysa wareegaas waxaad ku dadaalaysaa inuu ku beegan yahay afkan yar ee ay jiimka ama xaadu ay leedahay inaad isku beegtid ayaa qurux badan waxaa kaloo muhiim ah in bartankaas aad wareegga ka soo bilowdid ayaa muhiim ah haddaba haddii afkan yari sidaa u yare dadbanaan waayo oo u janjeeri waayo oo sidan oo kale uu u toosnaado jiimkii wuxuu noqonayaa jiim khaldan ayuu noqonayaa haddii maalan saas oo kale la yidhaahdo oo afkani uu hoos eegayo jiimkaasi wuu khaldanaanaya waxaa kaloo jiimku khaldanaanayaa haddii aanad ka soo dilaacin bartankaas oo aad maalan afkaas oo kale ka soo dilaacisid oo aad saa tidhaahdid jiimkaasina wuu khaldanaanaya sida ugu muhiimsani markaad doonaysa inaad jiim qortid kow waa inaad sadarkii ka dallacdaa haddaad sadarkii ka dallaaci weydid oo aad sadarkii madaxa u saartid isna wuxuu noqonayaa mid khaldan saas daraaddeed waxaa muhiim ah in qodobada aynu sheegnay iyada oo la tadbiiqinayo la sameeyo afkan in sidaa la yidhaahdo dhinacan loo yaro kaco iyadoo in yar la xoodayo la soo soconayo bartankaa markaad maraysid aad dilaacinaysid wareeggii baad bilaabaysa wareeggaaga laftigiisu waa inuu qurux badnaadaa haddii wareeggaagu fool xumaado aanu qurux badnaan waxay noqonaysaa jiimkaagu inuu khaldanaado wareeggan qaacido lagu sheegayo oo lagu odhanayo sidaa u qoro sidaas ma laha laakiin waxay ku xidhan tahay hadba ku celcelintaada iyo takraarkaaga iyo qoraalkaagu inta uu leegyahay jiimka dhibicda waxaa laga saarayaa halkaasoo kalea la saaraya sadarka oo kale ayaa dusheeda la dhigayaa kha'dana waxaa la saarayaa madaxa meeshii reedee aynu lahayn oo yaro xoodanta xaaduna waa bilaa dhibic laba arrin oo kale aan yaro baraarujinayaa waxaynu nidhi waa in afkan iyo wareeggani ay isku beegan yihiin ka warrama hadday isku beegnaan waayaan waxaa soo baxaya xa khaldan tusaale saasaa tidhi dabadeedna wareeggii ayaad soo dhaafaysa waa khaldanta waxaa kaloo khaldan haddii wareeggu uu gaaban yahay oo afkani uu ka soo dheer yahay iyana way khaldan tahay jiimka qawaacidda inahaas haddii qofku tadbiiqiyo jiim khadu naskhi ah ama xa khadu naskha ah ama kha khadu naskha ayuu qoraya ikhwaani fillaah waxaynu ku xijinaynaa xarafka addaal xarafka addaal iyo xarafka addaal waa isku qoraalkiisa sida ugu saxsan ee loo qoraya waxa weeye in intan sare la soo wareejiyo sadarka markaad in yar u jirtid ee aana taaban ayaa waxaad bilaabaysaa in aad ul yaro toosan oo in yaro xoodnaanahi ku jirto ayaad ku daraysa marka intan sare waa wareeg saarkii taabsini maysa waxaad bilaabaysaa in aad afkan kaga soo darteed xariiq yar oo iyada laftigeedu in yar yaro xoodan dabadeedna waxaad ku daraysaa dhibic haddii uu daal yahay haddii kalena bilaa dhibic ayaad ka dhigaysaa halkaa waxaad ka ilaalisaa inaad ka dhigtid gees tusaale ahaan saasaa tidhi waad taabsisay sadarkii markaasaad saa ul toosan u kacda waxay noqonaysaa halkani gees bay noqonaysaa aan loo baahnayn ushanna inay sidaa mudh u ahaato ma qurux badna iminkana waxaynu ku daraynaa oo aynu bilaabaynaa sharaxa xarafka ra aad buu fudud yahay wax adag maaha ushan waad qalloocinaysaa ama xariiqdan saasaad u qalloocinaysaa sadarka ayaadna saaraysa dabeedna waxaad samaynaysaa ultaa labadeed ka yaro dheer ayaad soo soconaysaa halkaa markaad maraysid ayaa waxaad samaynaysaa ul yar oo dhinaca leynka aan toos u aadaynin ee yaro aadaysa si tartiiba ayaad ku daraysaa ushana waa inay qalloocsanaato meesha aad ta kale ka soo jebinaysaa waa inay sadarka noqoto oo waxaa khaldan in sidaa la yidhaahdo oo adigoon sadarkiiba soo gaadhin
aad halkaa ka soo jebisid ushan dheer xagga dheerar ahaan taa labadeed waa inay noqotaa waana inaanay sadarkan u dhowaan sare in badanna waa inaanay ka durkin waxaan u jeedaa in aanad sidaa odhan oo sadarkaa aanad u dhoweyn sare waxaan kaloo u jeedaa in aanad ka soo durkin oo sidan oo kale aanad odhan waa inay qiyaas dhexdhexaad oo kale ah inuu noqdo ayaa muhiima haddaan hal mar ku soo celiyo wuxuu noqonayaa afkan baad sidaa sadarka u saaraysa wuuna janjeedhaa waxaad ka soo jebinaysaa sadarka markaad saartid waad soo soconaysaa waadna u qiyaasaysaa sadarkii inaanad in badanna ka durkin in badanna u dhoweyn markaad afkaa sare labadii qortid ayaa waxaad bilaabaysaa inaad u kacdid dhinacan oo af yaroo dhuuban aad sidan u kacdid ayaad noqonaysaa afkani maaha af buuran maaha waa af yaroo dhuuban oo qalinka sidaa loo raacinayo waxaa jira qaab labaad oo loo qoro ra'da qaabkaasi maaha qaab aada loo isticmaalo maaha isagoo mufrada laakiin waa qaab mararka qaarkood la isticmaalo sidan baad soo wareejinaysaa saarka waad ka dalacaysaa wareeg baad sadarkii kaga soo degaysaa adoo yaro wareejinaya sadarkii markaad ka soo degtid baad dhinacan u kacaysa marka afkani sadarkii ma saarna kow laba waad soo wareejisay adoo wareegsan oo sadarkii markaad saa uga soo degtid ayaad dhinaca u yara kacaysaa casharkeena hore intaas ayuu ku joogsanayaa waxaana muhiim ah hal qodob haddaan ku daro in aad iyo aad takraarka iyo ku celcelinta iyo kitaabada iyo tamriinka loo badiyo qofkii doonayo inuu khad barto waayo khadku waa sida tajwiidka oo kale qofku markuu tajwiidka baranayo waa inuu carabkiisii layliyaa khadkuna waa inuu gacantiisii layliyaa walaysa baynahu wa bayna tarkihi ilaa riyaadatu mri'in bikafihi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.